inay muhiim tahay ka mid noqoshada hay-adahaas oo kale ah kow maxkamadda dembiyada caalamka ICC laba hay-adda ka hortagga baroobeynta nuclearka CPDCO saddex hay-adaha caalamiga ah ee tamarta atomikada IAEA mudanayaal iyo marwooyin mudane madaxweyne arrimahaas kalfadhigii koowaad inta fasaxa ku jirnay waa arrimihii noo qabsoomay waxaan rajaynayaa kalfadhiga labaad oo hadda uu furmaayo inuu noqdo maadaama kalfadhigii koowaad uu ku dhammaaday isdhisidii baarlamaanka dhexdiisa ah hay-adihii dowladda iyo maaragtay dhammaystirkii hay-adaha muhiimka ahaa uu ku dhammaaday kalfadhigan hadda socdo waxaan rajaynayaa baarlamaanka Soomaaliyeed gaar ahaan golaha shacabka maadaama ajentiyooyin aad u muhiim ah oo aad u tirada xukuumadda soo gudbisay waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay ka mid dhalin doono haddii aan leedno ugu dambeyntii mudane madaxweyne adigoo ku mahadsan ku soo dhawow gudashada waajibaadkaaga dastuuriga ah oo aad inoo furto kalfadhiga labaad ee baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda Soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدونك لبدا أقل برلمانك جمهورية فدرالك الصومالية حلبانة برلمانك جمهورية فدرالك الصومالية مرتشرف تكاله مدنا يا المروين حال بكل سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدي أنور بحين كوبان إذن سيو ولا ليال إسلامك عن حلك لوريجي وحان لكو سدي laba xaaladood oo kala daran labaduba abaaro saameeyay in ka badan 7 milyan oo qof iyo khawaarijta oo sii kordhiyay culayska ay ku hayeen shacabkeena taagta daran waxaan qaaday tallaabooyin aan u arkayay markaas in ay lagama maarmaan u yihiin gogol xaarista hanaan wax looga qaban karo dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ragaadiyay maadaama xalka dhibaatooyinkaasi uu ku jiro Soomaali heshiis ah ayaan annaga oo ka duulayna yoolkaas baaxadda leh sida ku cad barnaamijka xukuumadda dawladdeenu waxay xoog isugu geysay hiigsiyada soo socda 1 Soomaaliya sharcigu sareeyo 2 Soomaali heshiis ah 3 Soomaali dawladda heshiis la ah 4 Soomaali isku filan iyadu 5 Soomaali cagaaran oo ka baxday xaalufka iyo maxaan ku raadal geeyiga guuray 6 dhisidda hay-ado tayo leh oo bixin kara adeeg hufan oo ku filan dadka Soomaaliyeed mudanayaal marwooyin waxaan bogaadinayaa howlihii uu soo qabtay baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya kalfadhigiisii koobaad oo ay ugu horeysay doorashooyinkii guddoonka madaxweynaha iyo kalsoonisiintii ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda sidoo kale inaad dhisateen guddiyadii joogtada ahaa iyo xubnihii idinku matali lahaa baarlamaanada caalamka waxaan sidoo kale bogaadinayaa xubnaha ka tirsan baarlamaanka golayaasha ee u guntaday in ay garab istaagaan ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee u istaagay in ay iska xoreeyaan khawaarijta waxaan shacabka Soomaaliyeed hormuud uga noqoteen macnaha dhabta ah
matalaadda shacabku ay tahay ama ay leedahay maanta dalkeenna iyo dadkeennuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn meel guuldarradu aanay boos ku lahayn boos uga bannaanayn guuldarro waxaan go'aansannay inaan u guntanno dagaalka dalka looga sifaynaya khawaarijta waxaan soo waayay ka madaxweyne ahaan jid aan ahayn inaan difaacno karaamadeenna islaamnimadeenna iyo qarannimadeenna dalka iyo dadkuba waxay inooga baahan yihiin xilgudasho dhammaystiran oo ah in aan dhinac uga soo wada jeesanno halka cadow ee soomaaliyada maanta ay leedahay waa inaan isku garab siino shacab iyo dawladba sidii aan dalka oo dhan uga xorayn lahayn halkaas cadow ee maanta aan leenahay dib u xoraynta dalka oo dhan waa wadada kaliya ee aan ku xaqiijin karno dal nabad ah oo uu sharcigu sareeyo waxaad ogsoon tihiin in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ay ku baraarugeen dhagarta cadawga iyaga oo garawsaday khawaarijta al-shabaab iyo daacish in ay yihiin khawaarij in ay yihiin ka been sheegaya diinteena suuban kuna dhiiraday in ay iska dulqaadaan dulliga iyo heeryada khawaarijta ku soo gabatay diinteena abwaan Soomaaliyeed ayaa horay u yiri nin dayoobay soo noqoy markuu waagu daalacay dadweynihii la lumiyaana mar un bay dowga helayaan dadkeennu maanta ayay dowga heleen dadweynaheena ayada oo aan muddo badan xafiiska dawladdeena anagoo muddo badan xafiiska joogin waxay garatay in kacdoonka shacabka Soomaaliyeed uu kaalin mug leh ku leeyahay sidii khawaarijta dalka oo dhan looga sifayn lahaa looga xorayn lahaa annagoo aaminsan in shacabka Soomaaliyeed ciidankooda oo is kaashanaya ku guuleysan doonaan dib u xoreynta deegaanada ku haray gacanta cadawga khawaarijta gacanta cadawga khawaarijta tusaale bilow ah waxa inoogu filan dagaalada ka dhacay iyo guulaha laga gaaray gobolada Hiiraan Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud iyo diyaar garowga xoog leh ee ka socda gobollo kale oo badan oo dalka ka tirsan waxaa shaki ku jirin in maadaama aan dagaal ku jirno cadawguna oo jab weyn gaaray ay beegsan doonaan shacabka aan waxba galabsanin sida weerarkii 29 Oktoobar ee ka dhacay agagaarka Zobe waxaan bogaadinayaa dadaalka ciidamada iyo shacabka oo iyo mas'uuliyiinta siyaasiyiinta oo u guntaday u gargaaridda dadweynihii ku waxyeeloobay waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baryayaa inuu jannadiisii fardowsa ka waraabiyo shuhadadii nooga geeriyootay dilka xaqdarrada ah ee khawaarijtu ay geysteen sugidda amniga iyo ciribtirka khawaarijta ka sokow shacabka Soomaaliyeed waxa uu u baahan yahay Soomaaliya sharcigu sareeyo taas oo inaga rabta meel marinta shuruuc la jaan qaadi kara xilliga aan ku jirno iyo duruufaha inoo gaarka ah maanta Soomaaliya iyada oo taas laga duulayo waxa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa aan faray in ay ka howl galaan soo gudbinta dhammaan shuruucda ku u baahan yahay oo qayb kamid ah oo muhiim ah ay soo gudbiyeen durbadiiba xildhibaanada Soomaaliyeed oo walaalayaal anigoo maanka ku haya in la helo jawi siyaasadeed oo xasiloon kaasi oo saamaxaya in si wada jir ah looga shaqeeyo xal u helidda arrimaha masiiriga ah ee u baahan heshiis siyaasadeed deganaanshiyo iska warqab isku kalsoonaan ayaan u baahanay sidaas daraaddeed waxaan booqasho ku tagay inta badan dawlad goboleedyada dalka waxaan sidoo kale yeelanay 3 kulan
golaha wadatashiga qaran oo aan ku lafa gurnay xoojinta hanaanka wada shaqaynta heerarka kala duwan ee dawladda iyo isla meel dhigidda qodobada waaweyn ee ay tahay in xalkooda si mid ah looga wada shaqeeyo sida dhamaystirka dastuurka dalka oo waqti badan qabyaatirku soo jiitamay dhamaystirka hanaanka amniga qaranka si loo helo hanaan loogu midaysan yahay oo qayb mug leh ka qaadan kara xoreynta iyo la dirirka khawaarijta helidda nidaam doorasho oo heshiis lagu wada yahay oo loo sii dhaweeyay shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada ay degan yihiin mudnaan siinta dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka arrinta xal u helidda Somaliland iyadoo oo loo maraayo wada hadal isu tanaasul iyo isqancin xoojinta iyo dhamaystirka nidaamka federaalka ah dhamaystirka iyo taabagelinta hanaan garsoor oo madax bannaan oo isla markaana hufan maadaama ay waajib tahay in dawladnimadeenu ay ka turjunto baahida shacabka loo adeegayo waxa aan sidoo kale shirar kala duwan oo wada tashi ah la yeeshay qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaaliyeed oo aan ka dhageystay talooyin wax ku ool ah oo ku aadan arrimaha ay u arkaan in ay mudnaanta la siiyo inta aan ku guda jirno muddo xileedkeena waxa aan markii aan xafiiska imiday safarro dalka dibadiisa ah ugu ambabaxay dalal kala duwan ujeedada safaradaasi iyo booqashooyinkaasi waxa ay salka ku hayeen qorshaheennii ku aadanaa inaan helno siyaasad arrimo dibadeed oo ka duulaysa Soomaaliya diriskeeda iyo dunida heshiis la ah waxaan safaradaas aasaas u ahaa inaan madaxda dalalka aan ka wada hadalno danaha aan wadaagno iyo qaabka ugu habboon ee ay uga qayb qaadan karaan dib u dhiska iyo dib u soo yeelashada iyo soo kabashada qaranka Soomaaliyeed iyo kaalinta ay ka geysanayaan dagaalka aan kula jirno khawaarijta manaxaanka ah ee caqabada ku ah dawladnimada iyo nolosha dadka Soomaaliyeed kuwaasi oo banaystay daadinta dhiigooda boobka hantidooda ku xadgudubka sharaftooda dhammaan safaradaas waxaan kala soo laabanay guulo annaga oo madaxda dalalkaas isku raacnay inay door mug leh ka geystaan arrimaha hortilinta u leh dawladdeena iyo dadaalada aan ku baadi goobayno dib u dhiska dalka iyo xoojinta dawladnimada curdanka ah ee maanta aan haysan waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u xaqiijiyo in siyaasadda dawladdeenu ay lafdhabar u noqon doonto in la soo dhaweeyo cid walba oo diyaar u ah in ay naga taageerto arrimaha mudnaanta inoo leh iyada oo aan isu dheeli tirayno danaha aan caalamka ka leenahay iyo kuwa ay iyagu naga leeyihiin Soomaaliyada xilligan joogto inta ay saaxiibo u baahan tahay ayaa ka badan inta ay cadow u baahan tahay mudanayaal marweyn sida aad la wada socotaan dalkeenu waxa uu la tacaalayaa xaalad adag oo ka dhalatay jiilaalka iyo abaaraha daba dheeraaday ee ragaadiyay nolosha dadkeena ku tiirsan dhaqashada xoolaha kalluumaysiga iyo tacabka beeraha saameynta abaarahaas ka dhalatay ma saameyn kaliya dadka balse waxay dhaawac u geysatay dhaqaalaha guud ee dalka maadaama xoolihii iyo beeruhu yihiin lafdhabarka dhaqaalaheena si abaartaas looga hortago dalkana looga badbaadiyo macluul baahda oo galaafata dad badan oo Soomaaliyeed waxaan qaadanay tallaabooyin isugu jira qareemid uu hormuud u yahay ergey gaar ah ee abaaraha kaasoo aan magacaabay intii maalmihii ugu horeeyay ee xafiiska aan imiday muhiimadaas ergeyga uu lahayna waxay ahayd
caalamka inuu gaarsiiyo fariinta iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed ee ku wajahan abaartaas waxaan dhisnay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada taas oo durbaba ka hawl gashay sidii loo gaari lahaa Soomaaliya cagaaran oo deegaankeedu uu dhowrsan yahay lehna dhammaan siyaasad iyo shuruucda lagama maarmaanka u ah maareynta arrimaha deegaanka mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal dowladnimada waxaa udub dhaxaad u ah dhismaha hay-ado ku dhisan sharci oo awoodi kara in ay si hufan u gutaan waajibaadka loo igmaday hay-adaha noocaan ah waxay inooga baahan yihiin tayeyn joogto ah oo lagu horumarinayo xirfadaha dadka ka shaqeeya hay-ada dowladdeena nolosheenna guusheenna iyo qarannimadeenna waxaa aasaas u ah inaan ka shaqayno garsoor ku dhisan cadaalad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl dib u dhiska dowladdeenna waxay u baahan tahay garasho wada tashi kalsooni dhisid iyo go-aan ku yimaado cadaalad iyo garsoor loo siman yahay taasi oo sahlaysa inaan dejisanno xeerarka iyo shuruucda hagaya geedi socodka dowlad dhisideenna maanta mudanayaal iyo marwooyin ugu dambayntii waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo kaalinta baarlamaanka federaalka ah uu ku leeyahay hirgelinta dhammaan himilooyinka qaranka uu hiigsanayo dhammaanteen waxaa nagu waajib ah in aan ku shaqayno dareen iskaashi iyo wada shaqayn innaga oo mudnaanta siinayna dejinta dhammaan shuruucda loo baahan yahay iyo fulintoodaba waxaan si xushmadi ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa in aad kalfadhiga cusub fududaysaan intii suurtagal ah dhammaan shuruucda idinkaga imaan doona xukuumadda shuruucdaas oo hiigsigoodu yahay arrimaha aan soo dul maray walaalayaal waxaan haysanaa fursad qaali ah oo aan dalka iyo dadkaba ku samata bixin karno taariikhda ayaa xusi doonta kaalinta uu qof kasta uu ka qaato dadaalka iyo halganka maanta socda ee dowladnimadeennu u baahan tahay xildhibaanada Soomaaliyeed oo walaalayaal gabagabada halganka maanta socda wuxuu dhali doonaa ilaahay idankiisa aabbayaasha Soomaaliyada cusub iyo geesiyaal taariikhdu ay xusi doonto sidaas daraaddeed hogaamiyeyaasha maanta waa innaga ayaanay ina seegin fursaddaas haddii alla yidhaah haddaba aniga oo gudanaya waajibkayga dastuuriga ah sida ku cad qodobka 9aad xarafkiisa ga ee dastuurkeenna waxaan kusoo gabagabanayaa hadal jeedintayda kalfadhiga labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa noo furan yahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaas waa si kooban waqtigu maadaama iska xadidan yahay waqti dambana yahay laakiin walaalaha sharafta leh ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan mar walba ku adkaynayaa oo ku celcelinayaa wada jirkiina iyo u heelanaanta hawshu inay socoto isqabqabsiga iska hor imaadka hadallada kala socdoo dhan dib un bay noo sii dhigayaan waxaan bogaadinayaa runtii labada gole wada shaqaynta iyo quruxda bilowga ah ee ka muuqata waxaan rajaynaynaa in ay sidaasi kalfadhigan iyo kalfadhiyada ka dambeeyaba ay sidaasi ay ahaan doonto aad iyo aad ayaa umahadsan tihiin guul iyo waxaan idiin rajaynayaa gobonnimo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore